kadib markii uu dhacay dagaalkii labaad ee dunida waxaa dhacday in laba nin ay go'aansadeen in ganacsigooda ay ka dhisaan waddanka Japan oo ahaa waddankii ugu xumaaya oo dagaalku saameeyay waqtigaas isla markaasna uu burburiyay ayadoona go'aankaas ahaa in Japan ay ka dhisaan kambanigoodan oo waqtigaas ahaa go'aankii ugu xumaaya oo qof qaato waxay yaataba laakiin mid ka mid ah dhismayaasha ay burburiyeen dagaaladu waxaa jirtay in labada nin ay go'aansadaan in meeshaas ay ka asaasaan kambanigooda kambanigaasina kambani kale ma aha waa kambanigan maanta wada naqaan ee Sony mid ka mid ah kambaniyada farkutiriska sidoo kalena laga yaqaan caalamka oo dhan sidoo kalena ay produktiyadoodu meel walba ku fideen ha noqoto raadiyaasha TV-yada taleefanada iyo waliba xitaa PlayStation-nada haddaba sida shirkad laga asaasay mid ka mid ah wadamadii ugu dhaqaalaha darnaa waqtigaas ay isugu bedeshay shirkadan intan leeg sidoo kalena balaayiinta dollar ku fadhida ayadoona shirkadan ay ka qayb qaadatay in waddanka Japan ay dhulka ka soo qaado sidoo kalena ay ka dhigtay mid ka mid ah wadamada ugu dhaqaalaha badan dunida haddaba muuqaalkeenan maanta waxaan isku leeyahay taariikhda dhammaystiran ee Sony laga soo bilaabo bilowgii adkaa ilaa laga soo gaaro boqortooyadan ku fadhida boqolaalka bilyan ee dollar haddaba taariikhda kambanigan Sony ayaa mid soo bilaabantay taariikhda markaad 1921 kadib markii uu dhashay ninkan oo lagu magacaabo Akio Morita haddaba ninkan ayaa ka dhashay qoys ganacsatada waqtigaas sidoo kalena lahaa warshad soo saaraysa nooc ka mid ah khamriga halkaasuna Akio yaraantiisiiba mid ka shaqeeyay sidoo kalena ku dhex jiray ganacsiga familkiisan waxay yaataba kadib markii uu soo weynaaday Akio waxaa dhacday in gebi ahaan buu ka soo istaagay ganacsigii familkooda asagoona rabay inuu iskiis ku taago sidoo kalena uu ganacsigiisa u khaaska u asaasto halkaasuna waa mid waalidiintiisa ku codsaday inay ogolaadaan inuu barto waxaan uu rabay oo physics iyo engineering-ka halka waalidiintiisa ay ayaguna ahaayeen kuwa la rabay barashada business-ka iyo dhaqaalaha si bari ka maalin uu ganacsiga familkooda wareego nasiib wanaagna waxaa dhacday in familka ay ka ogolaadaan Akio inuu barto wax allaala waxa uu rabo go'aankan uu ugu dambeyntii bedeli doono guud ahaan mustaqbalkiisa haddaba kadib markii uu dhacay dagaalkii labaad ee dunida waxaa dhacday in halka Akio la gelin lahaa safka hore ee dagaalka in loo doorto ninkan inuu ka mid noqdo injineerada sameeya hubka maadaama uu ninkan isla markaas ah mid soo bartay cilmiga fiisiiska iyo injineernimada intaas kadib taariikhda markaad 1944 Akio ayaa halkii kula kulmay saaxiibkiisa mustaqbalka kaasoo lagu magacaabay Masuru Ibuka ninkan oo asna ahaa injineer sidoo kalena uu shaqeynayay ciidamada halkaasoo labada nin ay bilaabeen khibradooda injineernimo isku darsadaan sidoo kalena ay u isticmaalaan wax ka duwan dagaaladan iyo waxan ayagoona go'aan ku qaatay inay isku taagaan halkaasna ay ku dhisaan ganacsigooda u gooniya ganacsigaasoo la xiriira teknoolojiga iyo wixii ay soo barteen laakiin waxaasoo dhan waxay ahaayeen oo keliya riyo oo waqtigaas waxaa dhexda looga jiray dagaalkii kaasoo ay si dhab u ogaayeen in Japan ay dagaalkan ku guuldareysan doonto isla markaasna ay halkaas ku burburi doonaan wax walba midanoona ugu dambeyntii dhacday ayadoona taariikhda markaad bishii 1945 uu Mareykanku bilaabay in Japan uu ku dhufto hubkii nuclear-ka kaasoo wax walba bedelay sidoo kalena Japan ciid ku daray sida yaataba waqtiyadaas labadii nin lagu kala magacaabay Akio iyo Masuru ayaa ahaa kuwa dagaalku kala qaybiyay ayadoona labadan nin midba meel u jeestay halka Akio uu noqday macallin dhanka kalena Masuru waa mid go'aansaday inuu aasaaso kambanigiisa yar laakiin maxay ku taalaa Japan waqtigaas la jooga ayaa ay meesha ugu xumeed ee ganacsi laga asaaso oo dagaalkii ayaa ahaa mid saameyn aad u weyn ku reebay halka magaalooyinka waddankaas qayb ka mid ah ay ahaayeen kuwa gebi ahaanba dhulka la simay halka dad iyaguna ay wajahayeen xaaladoodii ugu xumeed ayadoona in ninkan lagu magacaabo Masuru uu ku fikiray in ganacsi uu ka dhiso waddanka Japan oo xaaladaas ku sugan ay ahayd arrin la dhihi karo midaan marna u macquul ahayn waxay yaataba laakiin waxaasoo dhan dhigmo uusan u dhigin asagoona halkii ku dhisay kambanigaasuna ugu talagalay inuu ku soo saaro qalabka telecommunication-ka laakiin nasiixuun fursad uma saamixin oo qalab iyo lacagtoona ma uusan u helin fikradiisan waxay yaataba intaas kadib Masuru ayaa bilaabay inuu ka shaqeeyo fikradiisa kale taasoona ay soo saaridiisii qalab kale oo cusub haddaba qalabkiisan cusub ayaa mashiin lagu kariyo bariiska kaasoona ku shaqeynaya koronto laakiin nasiixuun qalabkan ma uusan noqonin mid guuleysta sabab la xiriirin in qalabkan waa mid haleynaya bariiska oo aan si fiican u karinaynin intaas kadib Masuru ayaa markale isku dayay produktyo kale sida inuu sameeyo kuleeliye iyo qalabyo kaleba laakiin waxaasoo dhan ma aysan u soconin asagoona dhanka kale Masuru ahaa mid hore u sii socday sidoo kalena maruun aaminsanaa in guuldarrooyinkan ay maruun isku bedeli doonaan guul halkaasoo ugu dambeyntii Masuru ahaa mid mar kale helay fursadiisii ganacsi taasoona ay samaynta raadiyayaasha haddaba intii lagu guda jiray dagaalkii dowladda Japan ayaa ahayd mid raadiyayaasheedii ka jirta xarkaha anteenada si isla markaas ay dadweynaha uga ilaaliyaan signaalada wadannada reer galbeedka iyo waxay dad iyagu ku faafinayaan propagandada laakiin markii uu dagaalkii dhamaaday kadib waxaan u raadiyayaal waxay u baahnayeen qof sameeya maadaama uu markan qof walba rabay inuu la socdo waxa caalamka ka soconaya halkaasuna Masuru bilaabay inuu ka faa'iideysto fursaddan albaabku soo garaacday asagoona bilaabay inuu ka howlgalo samayntaas raadiyayaasha midanoona natiijadii ay noqotay in businesskii Masuru isla markiiba hawada galo sidoo kalena lagu soo daabaco mid ka mid ah maqaaladii ugu weynaa waddanka Japan intaas kadib waxaa dhacday in saaxiibkii hore ee Masuru ee ahaa Akio uu maqlo warka saaxiibkiisan lagu magacaabo Masuru halkaasuna ay labadan nin ugu dambeyntii ay mar kale dib isku laba heleen sida yaataba isla markiiba labada nin ayaa markiiba bilaabay inay kaga dhameeyaan fikradoodii hore ee ahayd inay dhisaan kambanigooda u gooniya si ay u soo saaraan produktyo cusub
laakiin dhibaatada ayaa idin lacag filanaysan markan haysanin labada nin halkaasuna Akiya markan bilaabay inuu aabihii weydiisa lacag iyo in isla markaas loo fasax ganacsigiisan cusub oo bilaabi doono maadaama ay dhaqan ahayd in Akiya uu la wareegay ganacsiga familkiisa nasiib wanaagna aabihii uu ka ogolaaday dalabkaas Akiya asagoona halkiisii lacag gaadhisay 190,000 yen oo waqtigaas u dhigantay $527 si uu businesskiisa ugu bilowdo haddaba taariikhdu markii 1946 Akiya iyo Masuri ayaa halkii ka howlgalay kambanigoodii lagu magacaabayay Tokyo Telecommunication Engineering and Corporation halkaasoo ay raggan ku hawlgaleen lacagtii yareed ayagoona sidoo kale soo shaqageliyay injineero kale kuwaasoo la shaqeeya intaas kadib sanado yar oo ay isku day badan sameeyeen kadib waxaa dhacday in taariikhdu markii 1950 ay Akiya iyo Masuri halkii ku soo saareen productkoodii cusbaa kaasoona ah cajalad duube haddaba inkastoo productigan noqonin mid guul aad u weyn gaadha haddana productigan ayaa ahaa midkii Sony dhulka ka soo qaadi lahaa sidoo kalena ka dhigi lahaa kambani dhaba ayadoona intaas kadib markii ay soo saareen qaybo kale oo noocan producti ah uu kambaniga ahaa mid suuq aad u weyn yeeshay halka 2 sano kadibna taariikhdu markii 1952 uu kambaniga ahaa mid la kulmay isbedelkii ugu weynaa waqtigaas waqtigaas waxaa dhacday in kambaniga ugu weynaa ay soo saareen nooca teknolojiyada transistorka uu ahaa mid la aysan garanayay qalabkiisan asagoona u ogolaanaya inay isticmaali karaan shirkadaha teknolojiga ee waqtigaas qalabkiisana transistorka ayadoona noocan transistorka uu waqtigaas uga dhignaa shirkadaha elektrooniga wax walba shirkadahaasoo inay ugu horreysay Sony haddaba intaas kadib waxaa dhacday in Akiya uu safar waddanka Mareykanka si uu isla markaas heshiiskan transistorka uu soo saxeexo asagoona dib ugu soo celinaya heshiiskaas waddankiisa Japan sida yaataba inta uu Akiya ahaa mid safarkiisa Mareykanka ku guda jiray Akiya ayaa ahaa mid aad ula yaabay dhismayaasha iyo horumarka ka muuqda waddankan USA iyo sida uu horumarka intaas leeg ku gaadhay asagoona isla markiiba ku soo dhacday sida uu waddankiisa Japan uu uga dambeeyay wadamadan oo dhan midaanoona uu Akiya aad ula murugooday iyo sida uu waddankii uu ka yimaado uu ahaa mid burbursan halka dhammaan wadamada uu soo maray ay ahaayeen kuwa soo kabsasho aad u weyn sameeyay kadib dagaalkii asagoona Akiya markan la soo laabtay fikrad kale oo kuwii hore oo dhan ka duwan fikradaasuna sida uu waddankiisa uga dhigi lahaa mid la tartama dhammaan wadamadaas kale kaasoona lagu soo saaro wax walba haddaba intaas kadib markii ay heleen leesankii waxaa dhacday in Akiya iyo Masuri ay bilaabaan in kambanigoodan ay ka dhigaan mid caalami ah halkaasoona ay markiiba ka fikireen magacii ay u bixin lahaayeen kambanigoodan magacaas ayna ku noqonayaan international ayagoona raadin badan kadib helay magacan ah Sony magacana ayna ka keeneen erey Latina kaasuna micnihiisu ahaa cod sida yaataba laakiin markiiba ma aysan ku wareegin magacoodan cusub oo horaantii koodii hore ayay ahaayeen kuwa weli isticmaala laakiin productyadooda cusub ayay ahaayeen kuwa ku xardha magacoodan cusub ee Sony haddaba dhanka kale Sony ayaa markan bilowday inay casriyeeyaan raadiyaashoodii hore maadaama ay waqti xaadirkan heleen transistorkii uu saamaxayay hawshaas oo dhan ayagoona markan raadiyaashii waaweynaa ka dhigay kuwa aad u yaryar sidoo kalena uu qof walba jeebka ku qaadan karo laakiin midan ayaa dhanka kale u baahnay lacag aad u badnayd halkaasuna ay bilaabeen in bankiga ay diin ka qaataan si ay isla markaas mashruucoodan ugu hirgeliyaan ugu dambeyntiina taariikhda markii 1955 Sony ayaa ahayd mid halkii ku samaysay raadiyadeedii ugu horreeyay lagu magacaabayay TR-55 noocan raadiyo oo waqtigaas ahaa mid aad u horumarsanaa intaas kadib Sony ayaa marka la bilowday in dadaalkoodii ay dadaal kale ku daraan si ay bal soo saaraan product ka yar midkii ay hore u soo saareen ee ahaa TR-55 oo Masaru ayaa ahaa mid markan u tartamayay inuu noqdo shakhsiga ugu horreeyay ee soo saara raadiyo lagu qaadan karo jeebka midaanoona u horseeday soo saaridii raadiyogii lagu magacaabayay TR-63 kaasoona noqday raadiyogii ugu horreeyay jeebka lagu qaadan karo inkastoo ay suuqgeyntaas waxoogaa been ay ku jirtay sidoo kalena uu raadiyoguna ahaa mid waxoogaa ka weynaa jeebka laakiin haddana raadiyahan ayaa loo aqoonsaday inuu yahay raadiyogii ugu yaraa waqtigaas midaanoona waqtigaas suuqgeyn aad u weyn u noqotay Sony ayadoona taariikhdu markii 1957 ayba Sony ay mid ka mid ah kambaniyada ugu waaweyn gudaha Japan ayadoona ay ka shaqeynayeen shaqaale ka badan 1200 oo qof halka 1960 ay Sony noqotay kambaniga ugu horreeyay Japanese kaasoona laga diiwaan geliyay suuqa Mareykanka halkaasoona ay wax walba hayeen markaas uu bilowday waxyaabo saaxiibeen intaana nuqdigan qaybta xigtay muuqaalkan xiisaa badan waxaan aad u rajaynayaa inaad ka mid noqoto saaxiibada nagu xidhan ee channelka haddii aadan hore uga mid ahayn sababtoo ah waxaan qabaa rajaa inaan gaari doono 20,000 oo subscribers inta uusan sanad ku dhammaan insha Allah idinka ayaana rajadaas run ka dhigi kara saaxiibayaal soo fadlan ha ilaawina channelka subscribe saarato mahadsanid haddaba inta uu Akiya mid ka shaqeeya xiriirada kore ee kambaniga Masaru ayaa mid asna ku mashquul soo saaridii mid ka mid ah productyada ugu suuqa weynaa waqtigaas productyadaas oo ah TV-yada nooca kalarka leh sidaan ognahay waqtigaas lixdamaadkii TV-yada ayaa kuwa black and white halka dhanka kalena ay ahaayeen kuwa shucaaca isla markaasna aan si fiican wax looga arkaynin haddaba Masaru ayaa midkii dhibaatadan bedeli lahaa ayadoona dhanka kale uu kambani walba u tartamay soo saaridii noocan TV maadaama ay ogaayeen in productygan uu noqon doono mid hit ah sidoo kalena suuq aad u weyn yeelan doona haddaba isla 1961 Sony ayaa ahayd mid ka howlgashay soo saaridii noocan TV ayadoona wax walba ka soo bilowday sidoo kalena guda gashay inay bilow ilaa dhammaad ay ayadu samayso noocan TV laakiin wax walba sidaas uma sahlanaanin ayadoona isku daygeedan ay markiiba ku qasaartay
halkaasoo ay Sony waqtigaas kula kulantay mid kamid ah khasaaradeedii ugu weyneyd heer TV-yadeedan markay noqon waayeen sidii ay ka rabeen ay bilaabeen inay ku iibiyaan kala badh qiimihi ay ku sameynayeen si ay bal isku dhaafiyaan laakiin sidaas ay tahay haddana Masaru iyo tiimkiisa ayaan ahayn kuwa sidii isku dhiiba ayagoona markiiba guday galay xalkii dhibaatadan ugu dambeyntiina dadaal dheer kadib Sony ayaa bilowday inay halkii ku soo saartay nooceedii TV ee lagu magacaabay Terminator nooceedan TV oo ahaa noocii kalarka kaasoona ciidii ku daray guud ahaan tartamayaashii asagoona noocan TV oo ah mid high quality leh sidoo kalena uu ka wada fiicnaa dhammaan TV-yadii kale ee marketka ayadoona middan ay u saashayn Sony ay nooceedan TV ku iibiso lacag ka qaalisan lacagii lagu iibinayay TV-yada kale iska caadiga ah ugu dambeyntiina isla waqti yar kadib Sony ayaaba halkii ku noqotay kambaniga TV ee ugu weyn dunida ayadoona halkii ku iibisay in ka badan 280 milyan oo noocan TV-ya halka midda kale xusida mudan ay tahay in xitaa Sony ay waqtigaas 1973 ay ku guuleystay abaalmarinta loo yaqaan Emmy Awards productigeedan awgeed halkaasoo ay Sony marka si dambeysay ay sii noqotay mid caalami ah sidoo kalena adduunweynaha oo dhan ku fiday halka dhanka kalena ay riyadii Akiya noqotay mid soo rumowda iyo in waqti xaadirkan uu adduunweynaha oo dhan isticmaalay product lagu sameeyo wadankiisa Japan productigaasuna asagu gacantiisa ku soo saarayo waxay yaataba laakiin dhibaatada ayaa markan ahayd in productigoodan xiga uba noqon lahaa midkii markan wax walba dhulka gelin lahaa haddaba taariikhda markaad 1935 Sony ayaa mid soo saartay product cusub kaasoona ay geliyeen malaayiin dollar productigan oo ah qalabkan oo lagu magacaabay Betamax haddaba qalabkan ayaa qalab duubay muuqaalada sida live-ka uga socday TV-yada waqtigaas wax walba sidan oo kale ma ahayn ayadoona tusaale ahaan haddii waqti xaadirkan uu film ku dhaafo aad mar kale ku soo ceshanaysid haddaba aaladan lagu magacaabo Betamax ayaa ahayd aalad sidaas oo kale u shaqaynaysay taasoona markii aad u baahato ku duubaysay wax alaala waxaad rabto ee laga soo daayay TV-da si aad mar kale ugu ceshato laakiin nasiixuun Betamax ayaa markiiba la kulantay tartamo kale oo wax walba kala wareegay tartamahaasona ah VHS haddaba inkastoo qalabkan Betamax ah mid ka nadiifsanaa dhanka quality-ga VHS haddana waxaa dhacday in dadku ay door bidaan qalabkan lagu magacaabo VHS sababtuna wax kale ma ahayn waa in VHS ay ahayd mid ka wax keedin badnayd Betamax halka dhanka kalena ay aad uga raqiisnayd midan oo sababtay malaayiintii dollar ee Akiya iyo Masaru ahayn kuwa ku qarash gareeyay Betamax ay halkii sanado kooban ugu dhamaatay sida yaataba laakiin productigan xiga ayaa kii noqon lahaa midkii gebi ahaanba go'aan ka gaari lahaa mustaqbalka Sony waxay yaataba taariikhda markaad 1979 Akiya ayaa mid la yimaaday fikrad cusub taasoona ay Sony Walkman haddaba aaladan yar ayaa aalad la qaadan karo taasoona lagu dhageysanay muusiga iyo waxyaabaha dhageysiga ayadoona aaladan loo adeegsanay sameecadaha dhigaha sida yaataba inkastoo qof walba mid u arkay in fikradan ay tahay mid aan soconaynin sidoo kalena qasaarin karta kambaniga haddana sidaas ay tahay Akiya ayaa mid hubin fikradiisan ay noqon doonto mid guuleysata ayadoona dhan kale u aaminsanaa in fikradiisan ay noqon doonto mid aad caan u ah dadweynuhuna ay aad uga wada helaan halka dhanka kale uu ninkan mid sharad ku galay in haddii uu productigiisa noqon waayo mid guuleysta uu kambanigii guud ahaan iskaga tagi doono kalsoonida waalida ee fikradiisan uu ku qabay awgeed nasiib wanaagna sidii ayaa dhacday ayadoona caalamkii oo dhan uu aad uga helay productigii ahaada Walkman halkaasoona dadweynuhu ay bilaabeen in muusiga ay rabeen inay dhageystaan ay markan ku dhageysan karaan meel allaala meesha ay rabaan midaanoona marka waqtigaas la joogo wax weyn uga dhigneyd maadaama waqtigaas aaladaha dhageysiga ay ahaayeen kuwa guryaha ku eg oo keliya halkaasuna productigii Sony Walkman waa mid laga tiro ku dhaafisay 385 milyan oo xabo intaas kadib Sony ayaa dhanka kale markan bilowday inay soo gasho caalamkii muusikada halkaasuna talaabadoodii koobaad ay ka bilaabeen inay heshiis la gaaraan shirkadaha kale ah CBS iyo Philips intaas kadib sanadadii xigay Sony ayaa mid soo saartay aaladan oo lagu magacaabay CD taasoona ahayd aalad digital sidoo kalena lagu keedinayo codadka iyo muuqaalada halkaasuna ay CD-yada noqdeen kuwa gebi ahaan bedela dhaqaalihii Sony ayadoona sanad walba la iibsanayay 100 milyan midaanoona Sony ka sii dhigaysay inay marka si dambaysa noqoto midaan hab yaraatay waxba laga qaban karin ugu dambeyntiina taariikhda markaad 1988 Sony ayaa ahayd mid lacagahaas waalidaha kula wareegtay kambaniga hore heshiiska uga dhaxeeyay CBS Records iyo weliba muusigadoodii kambanigan oo kula wareegeen lacag gaadhaysa $2 bilyan ayagoona ugu dambeyntii kambaniga CBS aakhirkii u bedel doona kambanigan aan maanta wada naqaan ee lagu magacaabo Sony Music and Entertainment taasoona maanta ah shirkadda labaad ee muusiga ugu weyn caalamka oo dhan laakiin Sony qabsashadeeda ayaan intaasoo kaliya ku ekaanin ayadoona markan gudaha gashay qabsashada caalamka loo gooniya caalamkaasoona ah caalamkii aflaanta haddaba taariikhda markaad 1989 Sony ayaa mid iibsatay shirkaddii aflaam ee lagu magacaabay Columbian Pictures Home of Entertainment taasoona markii dambe noqotay Sony Pictures Entertainment mid kamid ah shanta studio aflaamta soo saar kuwada ugu weyn dunida sida yaataba mid kamid ah faa'iidooyinka ugu weyn ee Sony ka faa'iiday caalamkan aflaamta ayaa ahayd markii ay shirkadda lagu magacaabo Marvel ay bilowday inay la kulanto dhaqaale dar aad u weyn taariikhda markaad 1998 halkaasoo Sony ay mid dhaqaale daradan Marvel ka dhaxaragtay fursad kale ayadoona Sony markaas bilowday inay Marvel ku qanciso inay ka iibiyaan xuquuqda filimka lagu magacaabo Spider-Man mid kamid ah karakterkooda ugu caansan ayadoona maadaama Marvel ay waqtigaas ay mid aad ugu baahnay lacagtaas
ay heshiiskii halkii ku ogolaadeen halkaasoo Sony Pictures ay ugu dambeyntii ku iibsatay Spider-Man lacag waqtigaas gaadhaysa 7 milyan oo kaliya halka film walba ay sidoo kale ka bixinayaan 10 milyan oo dollar kadib marka la soo saaro halkaasoo ay si toos Sony u qaadatay karakterkan gabi ahaantiisaba ayadoona markiiba Sony ay mid soo saartay qaybtii ugu horeysay ee taxanaan Spider-Man taariikhda markaa 2002 kaasoo uu soo xariiqay qiimo gaadhay 825 milyan oo dollar midanoona guulaan innaba caadi ahayn u noqotay Sony halka sanadadii xigay Spider-Man Sony uu noqday ilaa ay ka soo galaan ku dhawaad 10 bilyan oo dollar sida yaataba dhan kale sidaas la mid Sony ayaa mid waqtigaas ka lumisay badil midkan ka weynaa sidoo kalena ay ku soo xarin kareen 100 bilyan deelkaasoo in waqtigaas Sony loo soo bandhigay Spider-Man ay sidoo kale Marvel ay mid Sony soo bandhigtay dhammaan karakteradeeda kale ee ay leedahay Marvel karakteradaasoo ay ku rabeen oo kaliya qiimo gaadhay 25 milyan oo dollar ayadoona nasiixuma ay Sony heshiiskii halkii ku diiday ayadoona aaminsan inuusan qofna danaynin karakteradan kale ee Marvel intaas kadib bilowgii 1990kii Sony ayaa mid mar kale soo gashay caalamkii gamingka halkaasoo ay mid heshiis kula gaadhay shirkadii waqtigaas caalamka gameka kala xidhnaa lagu magacaabay Nintendo inkastoo kadib isku dhac yimaada awgeed ay Sony iyo Nintendo ugu dambeyntii ku kala qaybsameen taariikh markii 1992 halkaasoo ay Sony iskeed isku taagtay halkiina ay ku soo saartay gamekeedii caalamka oo dhan gilgili lahaa ee lagu magacaabayo The PlayStation taariikhda markii dhamaadkii 1994 gamekan oo mid Sony soo ay guulaan innaba la taaban karin ayadoona la iibsaday in ka badan 100 milyan oo xabo ayadoona intaas kadib ku soo xigay PlayStation 2 kaasoo ilaa maanta la jooga video gameka lagu iibsiga badan yahay taariikhda abid kaasoo la iibsaday tiro ka badan 157 milyan oo xabo waxay yaataba ugu dambeyntii taariikhda markii 1997 maskaxdii farsamada kambaniga Sony ee lagu magacaabay Masaru Ibuka ayaa ahaa mid geeriyooday asagoo waqtigaas jiray 89 sano halka saaxiibkiisii Akio Morita ayaa midkii Sony ka dhigay shirkad caalami ah oo asna mid 2 sano ka dambeeyay saaxiibkiisa asagoo asna halkii ku dhintay asagoo waqtigaas jiray 78 sano taariikhda markii 1999 maanta la joogana kambaniga waxaa CEO ka ninkan oo lagu magacaabay Hiroki Totoki ninkan oo mid Sony ka soo shaqeeyay ilaa laga soo bilaabo 1987 ninkan oo isla markaas Sony xilal badan oo aad muhiim ah ka soo qabtay waxay yaataba dhan kale markaan soo laabana Sony ayaa ahayd sanadadii xigay mid isku sii fidisay meel kale oo aad u badan ayadoona dhan kale waxyaabo kale oo aad badan soo saartay sanadadii xigay ha noqoto taleefano laptop robotyo iyo xitaa baabuur elektrooniga walow sidaas ay tahay haddana uu kambanigu mid xoogaa hoos u dhac sameeyay sanadadii dambe haddana mid aan la ilaawi karin ayaa in kambaniga yaraa sidoo kalena ay aasaaseen Akio iyo Masuru ayagoo weliba waqtigaas ku jiray xaalad burbura oo noqday mid gebi ahaanba ka sarmar waxay ku fikirayeen ayadoona cashirka labadan in laga baranaya ay tahay in qofku raac wadadiisa taasuna isleeyahay horumarkaagu ku jiraa asagoona fiirnaynin wax kale iyo waxa uu isla markaas haysto si uu hamigiisa soo dhabeeyo hadaba adiga maxay kula tahay taariikhda xisaab badan ee Sony dhanka kale fadlan haddii uu muuqaalku cajab geliyo sidoo kale ilaawina asxaabtaada la wadaagto sidoo kale muuqaalkan kiisa xiga waxaan rajaynayaa inaan idin soo saxo muuqaalan maalmahan oo dhan diyaarinay kaasoo dhamaantii aad saameyn u leh kaasoo aan rajaynaa inaad ka wada heli doontaan insha Allah inta aan muuqaalkaas ka kulmayna waxaan rajaynayaa inaad ku raaxaysto muuqaalkii kan ka horeeyay haddii aadan horay u daawanin halkaas ayaa noo balana